بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ليال إريضا نوعا وكلا وحل إرادا مركي مصيبة دعضو runtii musiibo aad iyo aad u weyn ayaa maanta ku arkay baraha internetka kadib markii aan daawaday muuqaalkan markuu hindhiso dee wuu hindhisa adiga garanaya mataas jawaabeeda walaal muxuu yidhaahdaa jis muxuu yidhaahdaa waxbuu akhriyaa aduu markaad hindhisida xoogeeda odhan ba waxba ma idhaahdo wayga guurtaan malaynaya waxaa laga yaabaa markaad muuqaalkan daawatay inaad qosol dhaq ka siisay oo gaggag aad tiraahday laakiin waa arrin laga naxo qof weyn oo intaa la eg oo 60 jir ah ama 50 jir ah oo maanta garan waayey marka la hindhiso in la yidhaahdo alxamdulillaah qofka kalena uu yidhaahdo yarxamuka allah kii hindhisayna uu yidhaahdo yahdikum allah wa yuslix baalakum ilaahay subxaana wa tacaala hana hanuuniyo xaalkeennana ha wanaajiyo nebi aadan hadalkii ugu horreeyay ku hadlay ma garanaysaa ku hadlay markii la abuuray dee wuxuu yidhi aabow mise alaaba nebi aadan bilaaba u lahaa bilaabo hooyay buu yidhi hooyo bulaay ma waxbaba haade oo ninkaasaa wacanaaye walaalayaal taasna ma ahayn mid lagu qoslo waa mid laga murugoodo haddaadan ogeyn nebi aadan calayhi salaam kelimaddii ugu horraysay ee uu yidhaahday markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxda ku afuufay wuxuu yidhaahday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin malaa'igtana waxay yidhaahdeen raximaka allah ilaahay ha kuu naxariisto haddaba kelmaddii ugu horraysay ee uu nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ku hadlay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ahayd ahlu jannahana markay jannada galaan kelmadda ay odhan doonaanna waxa weeye alxamdu lilaah ayay odhan doonaan marka waxaa la yaab leh in maanta dhibka iyo jahliga walaalkeen haysta aanu ku qosalno oo aanu ka dhiganno waxaanu ku maadaysanno ilaahay baa ku dhashay labada miyaan midna lahayn hadda maxaa inaga dhasiiyey ya muu lahayn waxa laga abuuray dhawaabi laga abuuray midno waan maqlay way waa mahadsantiin miyaanay safaysanayn waxay weydiisay walaalkayga muslimkahow isweydii ma arrin lagu qoslaa mise waa arrin laga murugoodo runtii waa arrin laga murugoodo waxaana ugu dhaaranaynaa walaalkeen iyo dadka kale inuu ilaahay subxaana wa tacaala aadan abuuray aabbala'aan iyo hooyo la'aan uuna ka abuuray dhoobo uuna ka abuuray ciidda noocyadeeda kala duwan taasi oo la macno ah dadka midabada kala duwan dhaqanka kala duwan ee dabeecadda kala duwan intaba ay ka keeneen ciidda si ilaahay subxaana wa tacaala qudraddiisa saas ugu dhacdo nebi aadanna calayhi salaam ilaahay ayaa ku afuufay ee ruuxdiisa sidaas ayuuna ilaahay subxaana wa tacaala ku abuuray ilaahay waxaan weydiisanaynaa dembigan iyo dembiga waalidkan inuu dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noo naxariisto waxaan ugu baaqaya walaalaha meel kasta ay joogaan inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan inay caqiidada saxda bartaan inay gartaan in aakhire la isweydiin doono su'aalaha saddexda su'aal ee la isweydiin doono qabriga waxa weeye man rabbuk rabbiga ayaa weeye man nabiyuk nabigaadu waa kee maa diinuka diintaadu maxay tahay saddexdaas ayaa lagu weydiinayaa saddexdaasna haddaadan adduunka ku baran aakhira war ayaa ku haysta ummadda fadhiga ha ka kacaan caqiidada ha la barto casri waxaanu noolnahay walaalayaal qof walba uu wax baran karo waxaan kaloo ugu baaqayaa dhammaan walaalaha ciddii walaalkaas u faa'iideyn karta ee raadin karta ee yaqaana ha badbaadiyaan intuu nool yahay walaalkii naasir cadceedo idin leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh